kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal markastoo aad dunidan ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii wax ka dheh qiimaha iyo qadarinta mudan ee ku kala nool dunida dacaladeeda marka ugu horeysa Ramadaan Kariim marka labaad Allah awoodda leh waxaan uga baryayaa inuu naga dulqaado aafaadkan adduunyada dhan wada saameeyay xanuunka safmareenka ah ee aan isagu cidna aan ka beerin ee xashada iyo midjeclaysiga aan aqoon wala faqir wala taajir qof kastaba yaa waxaan ka baryayaa inuu aafaadkan naga dulqaado waaye marka intaasi ka gudbo waxaan jeclahay daawadayaal bal inaad marka hore ila dhageysataan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Said Abdullahi Deni waxa uu ka qayb galay barnaamij ay soo diyaariyeen gobol la yiraahdo golaha cilmi baarista oo xaruntiisu tahay Garowe markii khudbadihii dad badan oo lagu marti qaaday madashii ka hadleen waxa markii dambe loo dhiibay oo lagu wareejiyay oo lagu maamuusay Said Abdullahi Deni Said Abdullahi Deni wuxuu ka sheekeynayaa marxaladihii kala gedgedisnaa ay soo martay Puntland marka laga bilaabo burburkii aasaaskii Puntland ilaa iyo hadda marxaladii ay soo mareysay iyo saameyntii ay ku lahayd Soomaaliya taariikh fara badan ayuu ka sheekeynayaa kolley waa aragtidiisa haddaba markaad aad dhageysatid taariikhdaas waxa uu xusayaa SSC ama reer Khaatumo ama reer SSC oo ah iyagu dhal daraawiisheed taariikh fac weyn leh haddii la baahdo dee librariyada adduunka laga heli karo haddaba xilligii aasaaskii SSC soo bilaabmatay waxa sababay waxaasoo dhan iyadoo la ogyahay oo laga dheregsan yahay waxa uu Said Abdullahi Deni leeyahay waxa ay salka ku hayaan ama fikradani iska lahaa ama ay ka timid maxkamadihii xilliga maxkamaduhu ka jireen koonfurta Soomaaliya ama Muqdisho waliba xilligii Sheekh Shariif يعني dad halgankooda la hayo sababta ku kaliftay wuxuu ka dhigayaa isagoo xaqiraya in ay salka ku hayso arintani afkaar ay qabeen Sheekh Shariif iyo xilligii maxkamadahooda hadda ila yar dhageysta arintaas markay dhacday waa arrimaha waxaan rabaa inaan wax yar ma rabo taa inaan galo laakiin saameynta ay ku yeelatay Puntland maxkamadahaas markay dhasheen Puntland saameyn bay ku yeelatay waxaa dhacay in magaalo kasta looga dhawaaqay kooxo aysan maxkamadihii waxaa dhacay dagaal kale oo lagu soo qaaday oo maxkamaduhu hogaaminayay gaalkacyo waxaa dhacay dagaalkii Galgala waxaa hordhac u noqday waqtiga lagu dhawaaqayo waa meesheedii saldhigga curashada SSC waxay kaloo taa dabada ku haysay fikirkaas maxkamadaha abuurmay curashadii iyadana Khaatumo waxaa la isdhihi karaa iyadana waxaa sabab looga dhigi karaa dagaaladii Kalshaale iyo Isnacaybka iyo aragti waxaasoo dhan waa marxalad cusub siyaasiyiin cusub aragti cusub waxaasaa saldhig u ahaa waxaase ugu muhiimsan oo laga xusi karaa waa dagaalkii Galgala curashada SSC iyo Khaatumo
waxaa bays u noqday dadkii maxkamadaha markii dambe iyaguna xukunka yimid xilligii sheekh shariif oo madaxweynaha ahaa isagana wuxuu ahaa waxyaabaha uu dhiiri gelinay aragti cusub oo aragtidii reeraha ama dagaalamaya ama heshiiska dhexwada waa ay isbedeleen bulsho isugu xiran si kaleeto ayaa soo baxday oo si sahlan inay isu saameeyaan ay sahlan tahay oo meel walba markaas networking sameeyey oo markaas ta'yiidaad sameeyey marxaladahaas waxay ogyihiin marxaladaha kale oo hadda iyagana muuqda daawadayaal Soomaalidu waxaa ku mahmahda gaalka dil gartiisana si haddaba taariikhda saxa ah ee biyo kama dhibcaanka ee kaliftay ee keentay in shacabweynaha SSC inay sameeyaan kacdoon ama halgan ay doonayaan dhulkooda inta ka maqan ay ku soo ceshadaan SSC oo markii dambe isu bedeshay khaatum waxaa haddaba arrimahaasi inooga warramaya aqoonyaha Soomaaliyeed isagu xilligii SSC xilligii khaatum xilal ka soo qabtay maantana ah markhaatiga nool magaciisa waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamed Xasan wuxuu magac dheer yahay Gacmo Yare Axmed Gacmo Yare waatan ku sugan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho haye Axmed u jawaab marka ay samaysmayso SSC arrin ka dhalatay 1998 maamulkii Puntland ee la sameeyay beelaha Hartiga iyo daaroodka kale la deganay ay ku heshiiyeen ee gobolada shanta ah ee Sool, Sanaag, Bari, Mudug iyo Nugaal iyo deegaanka Buuhood oo gobolka Togdheer ka tirsan maamulkaasi markuu samaysmay baa nidaamkii uu ka tirinayay Mala Zanaawi oo ku khasbay maamulka Puntland in ay Soomaaliland ku wareejiso sababta loogu wareejinayna waxa weeye dhexmar badan oo la sheegay maamulka nimanka jabhadda NLF oo NLF inay dhexmartay baa khasab ku noqotay Puntland inay ka baxdo Soomaaliland qabsato arrin bareer oo heshiisana way ahayd haddii loo baahdana dokumentigeedii la helayo marka waxaan nasiib darro u arkaa odhaah maalin dhaweyd ka soo yeedhisay madaxweynaha ama hogaamiyaha Puntland Said Abdullahi Deni oo yidhi waxaan sameeyay research waa kii baadhida ahaa gaan waxaan leeyahay research ninkaasi ma samayn malahayga waxaan leeyahay ninka shaydaan baa waxaan u xambaariyay eed iyo dambi iyo ceebayn bay ahayd isagoo si fool xun oo action ahaan xataa aan qurux badnayn arrintaa uga hadlo waxaan isleeyahay ninkii reerkan dheeraadka ku hay faroola unbaa fariintaa u xambaariyay marka waa hungoobay waxa muu baadhin waa arrin been ah oo qaawan maxkamadaha islaamiga ah wadiifo ay xidhiidh maanu yeelan aniga ahaa afayeenka SSC khaatumaan ahaa wasiirka ahaa marnaba xidhiidh maanu yeelan marka waxaan leeyahay dee Said Abdullahi Deni hadda muu garaadsana dhulka waa joogay ma jiraan waxaan uu dadka ku marin habaabinayo waa hogaamin khaldan oo taariikhda lagaga been sheegayo dad ummad dhan lagu canjarafaynayo lagu xakaaganayo marka xumaantaas isaguna uu dhaxlayaa midhaheeda oo ma aha wax dadkani cafiyayaan waxaanan qabaa anuu meel uu tagay iyo meel uu baadhay toonna ma jirtee qof intaa leeyahay hadduu yidhaah waxbaan baadhayaa baadhitaanka waa la yaqaanaa waxaan is leeyahay arrintaasi dembi la'aan faroola u xambaariyey oo ummadda Puntland aan u ehelkanahay dheeraadku ah dadkan reer Sool iyo Sanaag nacaybkooda dee aan qarsanba iyo reer caymeedtoona marka intaas un baan is leeyahay anugu arrinta way ku jirtaa wax baadhid la yidhahaa ma jirin wadaadkaa waa la habaabiyey waayahay waxaan filayaa daawadayaal in aad ka bogarteen warbixinta miisaanka iyo culayska iyo xilmadda ku fadhida iyo weliba xaqiiqda ee uu inoo soo gudbiyey ilaa khayr ha siiye Axmed Gacmo Yare waxaan jeclahay haddana mar kale arrimahaasi xaqiraadda ah ee Said Abdullahi Deni uu shacab dhan qoomiyad dhan oo taariikh leh isagoo yasaya ama xaqiraya leeyahay waxa ka dambeeyay maxkamadihii Sheekh Shariif waxaan haddana imikana idinku wareejinayaa Maxamed Barre oo isaguna aqoonyahan fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska oo isaguna markii aan u bandhigay
warbixintan anigu odhan maayo waa been abuur waayo maan dad baa laga mudaciyay caarudud saasay ula koonaatay sida cabdullaahi deni waa kan maxamed barre oo isaguna arrintaasi ka jawaabaya iyadoo meel fiican marayso laakiin iska caabin iyo diidmo fara badan ay jirto ayaa waxaa dhashay mawjadii maxkamadaha ee ka curtay Soomaaliya ama Muqdisho koonfurta inta badan runtii mawjadaas waxay saameyn ku yeelatay dhammaan aragtidii Soomaaliyeed ee nidaamka siyaasiga la isku hayay waxa isku hayay markii hore qabaa'il saldhig ay u noqdeen xoogoodu hogaamiyaal kooxeed oo ka haysta ayidaad reereed badankooda mandate lama dhigi karo iyaga laakiin dadkooda waa taageersanayeen iyo maamulka Puntland oo markaas maamul ahaan u jiray maxkamadahaas waxay bedeleen dhammaan aragtidii laga qabay siyaasadda Soomaaliya waxa soo baxay dad badan oo saldhiggii hore ee 29kii u eg oo haddana isbiday inay mar labaad cudud ku qabsan karaan Soomaaliya arrintaas markay dhacday waa arrimaha waxaan rabaa inaan wax yaro mar rabo taa inaan galo laakiin saameynta ay ku yeelatay Puntland maxkamadahaas markay dhasheen Puntland saameyn bay ku yeelatay waxaa dhacay in magaalo kasta looga dhawaaqay kooxad aysan maxkamadihii waxaa dhacay dagaal kale oo lagu soo qaaday oo maxkamaduhu hogaaminayeen gaalkacyo waxaa dhacay dagaalkii galgala waxaa hordhac u noqday waqtiga lagu dhawaaqayo oo meesheedii saldhigga curashada SSC waxay kaloo taa dabada ku haysa fikirkaas maxkamaduhu abuurmay curashadii iyadana khaatumo waxaa la isdhihi karaa iyadana waxaa sabab looga dhigi karaa dagaaladii kalshaali iyo isnacaybkii aragti waxaasoo dhan waa marxalad cusub siyaasiyiin cusub aragti cusub waxaasaa saldhig u ahaa waxaase ugu muhiimsan oo laga xusi karaa waa dagaalkii galgala curashada SSC iyo khaatumo waxaa bays u noqday dadkii maxkamadaha markii dambe iyaguna xukunka yimid xilligii Sheekh Sariif oo madaxweynaha isagana wuxuu ahaa waxyaabaha uu dhiirigelinay aragti cusub oo aragtidii reeraha ama dagaalamaya ama heshiiska dhexwada waa ay isbedeleen bulsho isugu xiran si kaleeto ayaa soo baxday oo si sahlan inay isu saameeyaan ay sahlan tahay oo meel walba markaas networking sameeyay oo markaas taayidaad sameeyay marxaladahaas waxay ogyihiin marxaladaha kale hadda iyagana muuqda oo ururada kaleeto oo iyagana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم واد مقليسين سعيدني وحي وكهد لي خاتمه وحي كتمد أركتدو البهانتي وحي كتمد باهي وقت جيدي تمد وحي كتمد مامل قبوليديو اسمي مركا وحي كتمد 5,000 dad ku dhow oo erga ah ayaa isugu tagay magaalada taariikhiga ah ee Taleex 5,000 dad la inkiri karo maaha waxaa nasiib darro ah dadka aan wada dhisanay Puntland in ay u arkeen masiirka dhulbahante in uu khatar ku yahay jiritaanka Puntland taasaana keentay in ayaga iyo beesha Isaaq ay u heshiiyaan sidii loo burburin lahaa khaatumo lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan in ay khaatumo burburto dadka ay lacagtaa siiyaanna waa dadka dhulbahante ugu liita weeye marka dadkaasaa yacni hoggaanka qabtay waxa arrintaa keentayna wax kale ma aha waxa weeye waa يعني
cabsi laga cabsanayo in awooddii dhulbahante soo noqoto waayo waanu ka caqli badannahay waanu ka soomaalisannahay waanu hadalka waanu ka badinaa hadday noqoto in gabayada iyo qofku inuu hadlo ninka dhulbahante marka uu hadlo wuxuu ku hadlaa hadal mug leh marka sidaa daraaddeed waxaa nasiib darro ah in hadallo sida maaragtay waxaa la yidhi tanaga marka uu maran yahay wax ka qaylo badan ma leh marka anigu 2 jeer baan ka bixiyey apology anoo difaacaya magaca harti ku difaacaya muxuu ahaa beesha hartiyeed oo ah waa markii cabdiweli gaas yiri war anigu wiil yaroo dacas qaba oo ka yimid dinsoor igu xukumi maayo garowe raaligelin baan ka bixiyey wiilkaa yar anigu waa walaalkay waa Soomaali Soomaalida garan umana quuro berri ka maalina waxaa laga yaabaa wiilka inuu wiilkayga la ciyaaro talabaadna waxa weeye markii uu xuduudada ka xiray raashinka ninka la yiraahdo Siciidani iyadana raaligelin baan ka bixiyey Hirshabeelle iyo galmudugba weel baan wax ku wada cunaa Soomaalida garan marka cabdada naguma jirto waa noolnahay alxamdulillah dhibaato ma qabno Soomaali meel joogtana waa walaalkayo Soomaalida garan marka inaad annaga waa Soomaaliga wada arkaysaan dad aanu kabahooda tolayno ayaa annagana kafanteena tolaya laakiin waynu ka tashan doonaa insha Allah وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله طاول صاحب بيان markaan intaasi ka soo gudubno waxa dhawaan intii bishan barakaysan ee Ramadaan lagu jiray waxa wadanka Mareykanka gobol kamida warbaahintiisa soo taagay niman odayaala oo aan filayo asal ahaan inay ka soo jeedaan qabiilka ogaadeen من كمدا odayaashaas oo aan markaan dhageystay waxa uu ku hadlayaan aan u fahmay in ajaladan ka dhaxqaynaysa ay gashadeen Faroole Cabdiraxmaan Faroole oo isagu waqtigii madaxweynaha ka ahaa Puntland SSC ku sheegay argagixiso waxa uu ku sheegay argagixisada Soomaalida maamul goboleedyadu waxay xoqonayaan kaarka argagixisada oo Itoobiya ayaa hormaaneed iyo Malasanaaw iyo dadkii markaa joogay oo ayagu u ahaayeen shaqaalaha waxay doonayaan inay magaca sumcad kaga helaan Malasanaaw iyo Bakhtiye iyo Tigreey xogaa ayaba shilimaadana kol ay ku qaataan sidaas darteed buu waagaas Cabdiraxmaan Faroole وقوميت دان او كراميسان او تاريخ دير او umada Soomaaliyeed ku faanto iska leh uu ku sheegay argagixiso taba ajalada lafteeda odagan iyaga gashay sidaan fahmay waa kan isagoo ku galgalanaya beelinta magaca dheer taariikhda dheer leh ee SSC soo maanta soo dhaweeyay arrinta iyada aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan u hambalyeynayaa oo kale dawladda Puntland iyo shacabkeeda oo ugu horeeyay madaxweynaha Puntland oo intay Jubbaland qalalaasaha iyo dhibaatada lagu hayay heel iyo hooba weligood la garab taagnaa oo marnaba aanan iloobaynin iyadana waan soo dhaweynaynaa waxaan aad uga xunnahay oo kale cid kasta oo heshiiska ka soo horjeeda waxaa jira dad Jubbaland anigu meel ay ka arkeen aan garanaynin oo dhibaato badan aad ugu haya waxa iskaga hor yimideen iyo waxay ka waayeen aan garanaynin dadka waxa kamid ah reer Khaatumo waxba la soo qarin maayo reer Khaatumo kamid ah Khaatumo dadku hadduu isu manna sheeganayo garaadkii kuumade garaadool garaad kulmiye garaadool waftiga uu hogaaminayay ee salaadiinta ee ka socotay Somali State ilaa iyo xilligan aan taaganahay waxay ku mashquulsan yihiin reer Khaatumo dhibaatadii dhexdooda ah sida u xallin lahaayeen
xitaa qaar aan xamar weligood arag baa tegey arrintaa inay xalliyaan maantana iyaga iyo qoladan goldogob degan waxay shaqo ka dhigteen jubbaland colaadeeda iyo dhibaataynteeda nin baa yidhi intuu xanuunsaday iqaada nin walba meeshuu ahaya waan garanayaa buu yidhi jubbaland intay dhibaatada soo martay anugu waxaad sharkaa moodaya khayrkaa aa jiraa la yidhi jubbaland waxaanu ogaanay khilaafkii yaraa ee dhexdeeda ahaa nin walba meeshuu u taagan yahay baanu ogaanay waa wax noo noqotay darsin waxbarasho ah waxaan leenahay marka cid kasta oo jubbaland hagardaamaynaysaay raalli kaagama nihin kuguna soo dhowayn mayno waxaanan u dirayaa baaq salaadiinta uu hoggaaminayo kulmiye garaadool inay ka fiirsadaan arrimaha ay markii hore khaatimay ay kaga dhex jireen waayo cadowgaaga iyo colkaaga iyo dhibaatadaada cidna ma barbaarsato waxaan dhihi lahaa arrintaa inay ka fiirsadaan oy salaadiintu dib uga noqdaan waxaa kale oon soo dhowaynaynaa oon aad ugu faraxsannahay galmudug heshiiskii ka dhacay ee ay mucaarad iyo muxaafid iyo nimankii musharaxiinta ahaa dhammaantood ay ku heshiiyeen iyadana waan soo dhowaynaynaa wakhti kama dhumin 60 habeen gudahood yay ku heshiiyeen waa arrinaan iyadana soo dhowaynayno qoorqoorna waxaan kula dardaarmaynaa madaxweyne qoorqoor dadkaas reer galmuduga rabitaankooda inuu ku shaqeeyo oo gabbal sii dhacaya uusan moodin dhaan dabagaalle inuusan ku lugu-in baan iyadana aan ugu baaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas soo dhowaysana waan soo dhowaynaynaa waxaanan leenahay heshiiskaasi kii khayr qaba ha noqdo ugaas seeraar iyo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig iyo sheekh daahir heshiiskaa ay qaateen ee ay jubbaland ugu daneeyeen ee ay madaxweyne axmed maxamed isla gaadheen waa mid aanu dibad iyo gudaba soo dhowaynayno xaflad ballaadhan oo weyn baanu qaban lahayn waad soo ogtihiinoo xaflad lama qaban karo oo waxaa weeye waa ogtihiin waxaa jira intanadani waxaan isugu nimid marka annagoo ka turjumayna bulshooyinka qurba joogta meel kasta ay joogaanba annagoo codkooda ku hadlayna in arrintaa iyada ah aanu bixinno baaqaas baanu isugu nimid aad iyo aad baanan ugu faraxsannahay kanaxow nafta waa baan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal soomaalidu waxaa ku mahmaadaa balaayahan kaa qusin balaayada maaha run ahaantii odaygaa 90 jirka ah yacni xitaa wuxuu kala garan waaya warbal waxba kala hadha sababta uu reer SSC u xagxaganayo ama u anjarafaynayo waxaan u malaynaya waxaa ugu wacan isagaa marna Ethiopian sheeganayay marna Jubbaland sheegan marba waxbu galayay markii yaatibu galay mar Ethiopian marka malaasiisaasoo kala doonaya in shacabweynaha SSC-na ay noqdaan laakiin waxaan ogeyn shacabweynaha SSC inay ku dhintaan oo ku soo dhinteen midnimada Soomaaliya ilaa al'aanidaas wax dhiba iyo wax dheef ay ku qabaan ma jirto laakiin way ku dhaataan midnimada iyo sharafta Soomaalida marka waxa kale aanay dadka shacabka reer SSC aan ogolaan inaan la soo marsiin mid dabadhilif u ah gaalo Afrikaan ama ha ahaadaan wadamadan dariskana ama ha ahaadaan wadamada Carbeed kuwa dabadhilifka waana shacabkani ma arki karaan marka markuu ka waayay in marba nooc xuub siibto oo laga ekoonaatay inuu ku galgasho haddaba waata jawaabtiisii waxaa u haya abwaan dhalinyaraha oo ka soo jeeda beelweynta SSC waa dhal daraawiisheed isaga ayaan idin ku leexinaya suu markaasi mid daar quraarada ku jira baa dhagaxyamo tuurtuure si markaasi jawaabtiisa isaga laftiisa in meel la saaro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا فيصل محمد إسماعيل فيصل جوه وحن هالكن كسلام يا دمان أنت مقعي موقعة تقان إيو أنت وعدك جين بجار وحن هالكن إذا كله وده جيا فرنير أو كوبان أو كسابسن مقال أنكو أركي براه بالشدة مانتا مقال كاسو أي صدو بين حنير أو كوبان أو ضيال أو كوهايب أو كو أبتر ستبيش وقادين halkaas oo ay muuqaalka ku soo gudbiyeen
eed iyo xumaatiya gaf ayaan ka mudnayn beelweynta SSC iyaga oo aad uga cabanaya beelweynta SSC oo aan anigu uba haystay markii ay gudaha ogaadeen iyo jamhadii ONF ka dagaalamaysay dhulkaasi inuu ahaa dhulka kaliya ee ay maamuus iyo sharaf ku lahaayeen ku dheeraan maaye waxaanse ka hormarinayaa markii aan ninka codkiisa dhageystay iyo xaynta odayaasha ah ee garab taagan waxaa ii soo baxay dhowrkaas su'aalood waxaan idinkula wadaagi doonaa maanse la yidhaaho doqonuun isaga daah inta aanan maasada u gudagelin waxa aan marka hore halkan raaligelin ka siinayaa buuxda aniga oo ku hadlaya afka beelweynta kabla laxdaarood beesha tanade daarood ama laylkasi sida aad u taqaanaan oo uu ku soo daray eedii iyo foolxumadii uu odaygaasi kula dhacay beelaha dega SSC isaga oo carabaabaya oo hadalkii uu isticmaalay wuxuu ahaa beelaha dega galdogob isagoo ula jeeda laylkasi ama beesha tanade daarood sida aad u taqaanaan hadba waxaan ka siinaynaa raaligelin buuxda gafka oo qaawan ee uu odaygu kula kacay kii uu SSC kula kacay iyo foolxumadii iyo kala fogeyntii beelaha walaalaha ahayd iyo isku dirkii uu duqaasi ku kacay waxaan idinkula wadaagi doonaa maanse la yidhaahdo doqonuun isaga daa waxba yaanan hadalka ku dheeraan waxay tiri doqonuun isaga daa sida tan jeeruu dalqama ruux dusha waa mas-uuloo kama didaysid muuqe goortuu dibnaha furo diiwaanka meeluun ayuu kaga darsamayaa qofku marka uu hadlo ayaad garanaysaa nacas iyo fariidkii uu yahay inkastuu da-weyn yahay hadduu doorka garashada ka daboolan yahay fahan duubka madaxa saarani ma dadkuu ku darayaa waa maya darajadu ma magacbaa dulinimo ma dhaxalbaa wixii dilay awowgood miyaan laga dawoobayn shanta dacalee Soomaal diirkiya ka siman magac diintana mid weeyaan dalla waa hal kaliye hadma daris qabiilkii laga dhigay degsiimiyo dowlada isgarabyaal shanta dacalee Soomaal diirkiya ka siman magac diintana mid weeyaan dalla waa hal kaliye hadma daris qabiilkii laga dhigay degsiimiyo dowlada isgarabyaal waxadadan wax daalacan wuxuu diiday maankani durqunkiyo baraasuqa doolow iyo ka yimi goday ma dad baa ma duunyaa ma dameero daaqoo dabagelis xanuujiyo dacay lagu adkeeyaa duqadeeni ma xoolaa ma danaystayaalba baladba waxaan ay daldalayaan ma daliil la farayoo digniin loogu darayoo lagu dili hadhowba ma dib ay u baqayaan raggu damaca guud iyo dooda waa ka simanyee ma dilaan la diraybaa danta iyo ujeedadu kama degaysa maankee doqon uun isaga dah daawadayaal rumaantii bisha barakaysan inkastoo aanay fiicneen in maxaa hayday oo bulubta la iska ilaaliyo la cibaadaysto alle gacmaha la hoos dhigto laga baryo in aafaadkan iyo masaa'ibtan uu ilaahay naga kor qaado de ma ahayn in lagu mashquulo qaran dhan oo karaamaysan oo sharaf leh oo ku suntan midnimada iyo caalamka Soomaali jacayl daba haddii ninka odaga fariintan kule way gaadhaysaa waxaan leeyahay sheekhan dhageyso waxaad moodaa in adiga kaa hadlaya markaad dhageysatana ku camal fal oo laabtaada u sii daa ha ku daadegta afkaaga ha laga nabad galo maanta kanaad caay maanta kanaad xamani labadanaad isku diri weliba intay qof ahayd meel dhow way joogtay qabiil iyo qowmiyad dhan baad caayood xaman ood maanta oo dhan wax ka sheegi qof gaarahood xamatay baabad i cafi dhihi kartaaye qabaa'il iyo qowmiyadaada wax ka sheegtay
xaggeed ku wada arki ay kugu cafin Soomaalinka qiyaamuun maaha safar lagu soo galo halka eray cayda ee dhahdo hal qof hadaad caydana hal qof baa saf kuu soo geli qabiil dhan markaa caydana qabiil dhan baa saf kuu soo geli oo salaad iyo saka ka wada raba iyo sadaqaad la baxday ajirkeed ka wada doonaya inta dib isu geysatay ma aragtaa hal erayood ummad dhan wax kaga sheegtay dawladashayda qiimaha iyo qadarinta mudano waxa la soo gaaray amintii aynu isku sii macsalaamayn lahayn hawada inta aynu ku kulmayno barnaamij kan oo kala aniga iyo bahda Aftaag Production waxaan kaga tagaynaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.